السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان أصحابته halkan iga daawanaysa meel walba oo aad joogtaan isilba muuqaalkaygu marka idin soo gaariyaba muuqaalka waxaan doonayaa bal inaan kaga hadlo dhowr qodob oo cusub dhamaantoodna xasaasi ah isla markaana la xiriira bal wararkii ugu dambeeyay ee dhankaas iyo dalkayagii Soomaaliya waxaan marka hore doonayaa inaan fiiriyo xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer qaran oo markaasi lagu afduubtay magaalada Buulaburde ee gobolka Hiiraan waa guddigii qaban lahaa doorashadii uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maalmihii hadda la soo dhaafay uu lahaa ilaa April ayaan doorashooyin ka qabanaya Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed xubno ka tirsan ayaa la afduubtay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya afduubashada lagu sameeyay xubnahan ka tirsan guddiga uu sameeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu doodsan yahay waa maxay wararka ka soo baxaya miyaa la dilay miyay noolyihiin xagee aadeen bal xoga aan soo aruuriyay ayaan qaybta hore ee muuqaalkayaga aan doonayaa inaan marka hore ku fiiriyo marka labaad waxaynu fiirin doonaa maamulka Puntland iyo maamulka kale ee waqooyi bari ee Soomaaliya ayaa waxa ka dhex taagan arrimo adag oo la xiriira doorashadan lagu doodsan yahay ee Xasan Sheekh Maxamuud markaasi hormuudka u yahay wuxuuna khilaafka uu labada maamul uu gaaray heer ay markaani isku hanjabaan maxay isku hayaan maxaa hanjabaada keenay xagee wax marayaan iyo arrimahaana qodobka labaad ee muuqaalkayaga ayaan ku fiirin doonaa ugu dambeyn waxaan rabaa muuqaalka inaan ku fiiriyo beesha caalamka iyo Mareykanka oo saacadii hadda la soo dhaafay bilaabay inay soo saaraan waraaqo ku socda dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo dhamaantoodba ay ka muuqdaan handadaado iyo digniin iyo in farta loogu fiiqo wixii la sameyn lahaa madaxda Soomaalida ee maalmihii la soo dhaafay ku shirsanaa magaalada Muqdisho waa arintii aan idin sheegayay hadii shirkaan uu fashilmo waxa ugu horeeyo aynu arki doono oo ka soo bixi doona waa waraaqihii wiiftada ahaa ee beesha caalamka xalana ka imaanayay meeshii bay taagantahay bal qodobkaana qaybta ugu dambeeya ee muuqaalkayaga ayaynu ku fiirin doonaa marka bal soo dhawaada meel walba joogtaan isolba muuqaalkaygu uu marka idin soo gaariyaba waa 24 February 2026 waa markii ugu horeysay oo maanta hawada ku kulmayno fadlan hadaa ku cusubtiin channelka subscribe gareysta si aad ula socotaan wararka ugu dambeeya in halkan ku soo gudbino maalin walba iyo waliba goor walba aad ayaad mahadsantiin hadii aan bilaabo xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer qaran ayaa lagu afduubtay magaalada Buulaburde ee gobolka Hiiraan guddigan waa guddi uu sameeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana lagu doodsan yahay oo aan heshiis lagu ahayn waa guddiga la doonayo inuu qabto doorashooyinka heer qaran oo ilaa hadda lagu doodsan yahay doorashadaasuna ay tahay mid hadda ugu weyn ee Soomaaliya la isku haysto isla markaasna noqotay midaan ilaa hadda aan xal laga gaarin saddex xubnood oo marka ka tirsan guddigaas ayaa 3 maalmood ilaa 4 maalmood ka hor waxa loo soo diray gobolka Hiiraan iyo magaalada Buulaburde marka xalay markii ay Soomaaliya u ahayd hadda Soomaaliya waaga u soo bariyay laakiin xalay markii ay Soomaaliya ka ahayd ayaa saddexdaas xubnood laga afduubtay guri uu degan yahay gudoomiyaha degmada Buulaburde oo ku yaala isla magaaladaas Buulaburde aadna aan uga fogeyn xerada ciidanka ATMIS ay ku leeyihiin magaaladaas Buulaburde marka wuxuu gurigaasi uu ku yaalay meel loo arkay inay amni tahay aad ugu dhow xerooyinka ciidanka midda ATMIS iyo midda kale ee ciidamada halka degan ee magaalada Buulaburde halka ay ku sugnaayeen waxa la oran karayaa marka waa meel ka mid ah meelaha ugu amniga badan degmadaasi Buulaburde oo muddo yar ka hor laga qabsaday ururka Al-Shabaab marka rag hubaysan ayaa gurigii gudoomiyaha soo galay kala baxay saddexdaas xubnood oo u yimaaday magaalada Buulaburde inay markaasi tababaro bixiyaan qaabkii ay doorashada u dhici lahayd waa doorashada uu madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi hormuudka uu ka yahay marka saddexdii nin ee guddiga heerka qaran ka tirsanaa ayaan ilaa hadda meel ay jaan iyo cirib dhigan aan la aqoonin cidda afduubatana waxa ka taagan su'aalo aad u tiro badan xogo isdhaafaya oo kala duwan ayaa ka soo baxaya xilliga aan muuqaalkan duubayana habeen ayay ka tahay Buulaburde mana jirto official war ah oo ka soo baxay dowladda dhexe
maamulka Hirshabelle iyo maamulka kale ee Hiiraan State la baxay ilaa ay hadda cid official arrintan uga hadashay ma jirto waxa kaliya oo la xaqiijiyay waa inay maqan yihiin oo la afduubtay dadkii guddiga doorashooyinka ka socday ee magaalada Muqdisho laga soo diray wararka kala duwan ee ka soo baxaya ayaa mid wuxuu leeyahay waxa guddigaasi afduubtay rag ka tirsan macawisleyda isla markaasna intay webiga la gudbeen oo magaalada gadigeeda kale la aadeen ayay la tageen magaalada Buulaburda la yiraahdo waa magaalo uu webigu kala qaybiyo webiga Shabeelle marka qaybta ay la aadeen ayaa la sheegay in qaybta bariga magaalada dhinaca bariga ah in markaasi ay tahay oo halkaasi ay la aadeen ciidamo macawisley ah oo galay guriga gudoomiyaha halkaana kala baxay guddiga magaalada Muqdisho laga soo diray oo la doonayay inay doorasho ka qabtaan magaalada Buulaburda iyo Hirshabelle taasi marka waa hal scenario-ga labaadna wuxuu sheegayaa in ragan la aqoon ay la baxeen isla markaana ay malaayeen oo ay dileen guddiga laga soo diray magaalada Muqdisho nimankaas yeeyihiin lama yaqaano marka labadaas warba waa la wadaa ilaa ay haddana xaqiiqo rasmi ah lama yaqaano sidaan idin sheegana war sugan oo dawladda iyo maamulada ka soo baxay oo lagu kalsoonaan karo ilaa hadda lama hayo kulli waag markuu bariyo ayaa la arki doonaa bal warka saxda ah ee meesha ka soo baxa iyo cid afduubatay guddiga la soo diray haddaba arintan maxaa loo fasiri karayaa waa maxay fasiraadda laga bixin karayo qaybtan waa analysis waana aragtida shakhsiga ah oo aan doonayo inaan ku kabo waxa ragan loo afduuban karayo maxay noqon kartaa oo inaynu ka fikirnaa waxaan isleeyahay arintan waa tallaabo muujinaysa in doorashada uu hormuudka ka yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana keligii uu yaqaan qaabka u dhacayso in la diidan yahay markii laga hadlayo gobolka Hiiraan way fasiraadda ugu macquulsan ee la saari karayo in guddigaasi la afduubto waayo guddigaasi meesha ay joogeen meel cid walba iska timaada ay wax ka afduuban kartay ma waa meel safe ah gurigii gudoomiyaha dagaal kama dhicin rag lagu malaynin qarax kama dhicin ciidamadii ATMIS ayaa ka agdhow marka qaab siyaasadeed iyo dad diidan arrimaha siyaasiga ee madaxweynaha Soomaaliya uu wato iyo doorashadiisa dad diidan oo reer Hiiraan ayaa markaasi afduubtay waxa xusid mudan in shacabka Hiiraan degan ay si weyn u diidan yihiin maamulka Hirshabelle iyo waliba qaabka dawladda dhexe ee Soomaaliya ay markaasi wax u wado markii la fiiriyo la dagaalankii ay reer Hiiraan la galeen ururka Al-Shabaab arinta ayaa ka dhex muuqata marka reer Hiiraan maalmihii la soo dhaafay oo dhan gadood ay wadeen dawladda dhaxan waxay u soo jeedinayeen eedeymo maamulka Hirshabellena waa kuwa yiri waan ka baxnay oo Hiiraan State ayaynu samaysanaa marka arintaasu waa kala qaybsanaan doorasho waa diidmo doorasho reer Hiiraanna inay diidan yihiin weeye sawirka ka soo baxaya markii aan analysis-kayga iyo aragtida aan ku fiiriyo qodobka labaad markii aynu fiirino Puntland iyo waqooyi bari ee Soomaaliya ayaa waxa ka dhex qarxay khilaaf weyn oo siyaasi ah khilaafkaas oo asaguna salka ku haya isla doorashadan hadda ay reer Hiiraan iyo dawladda dhexe ay markaasi ku kala tagsan yihiin dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan waxay soo saartay jadwal ay doorasho golo deegaan uga qabanayso deegaamo ay ka mid yihiin magaalada Galdogob ee ka tirsan gobolka Mudug isla markaasna ka mid ah magaalooyinka muhiimka u ah maamulka Puntland oo arintaasi ka jawaabtay ayaa waxay soo saartay waraaq waxayna sheegtay in Galdogob ee Puntland ka tirsan tahay maamulka Puntland ay diidan yihiin nidaamka doorashada ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu kaligiis wato iyo waliba guddiga aan heshiiska lagu ahayn ee leeyahay doorashada ayuu qabanaya Puntland inta waxay ku dartay in Galdogob horey looga qabtay doorasho golo deegaan loo sameeyay oo 2023kii golo deegaan markaas laga sameeyay Puntland marka intaasi kuma aysan hakanin horey ayay u sii wado oo waxay yiraahdeen degmooyin kale oo ka tirsan bay yiraahdeen gobolka Sool iyo Cayn oo dastuur ahaan Puntland ka tirsan dawladda Soomaaliya waxay leedahay doorasho ka qabanaya marka Galdogob waa Puntland oo dood badan ba kama taagna laakiin Puntland waxay ku dartay waraaqdooda in Sool iyo Cayn ay dastuurka Puntland ay ku jiraan oo dastuur ahaan ay Puntland uga mid yihiin ayagaana in lagu soo xadgudbaa oo dawladda Soomaaliya ay tiraahdo doorasho ka qabanaya waa qalad Galdoobna horey ayaa looga qabtay doorashooyin ay Puntland tiri
markii aynu fiirino 2023 doorashooyinkii uu Saciid Cabdullaahi Deni ka qabtay Puntland meelihii laga qabtay markaynu dib u fiirino si aynu bal u xaqiijino sheegashooyinka ay Puntland sheegayso waxaynu arkaynaa gobolka Bari in laga qabtay gobolka Nugaal soo soco mudug markii aynu fiirino waxaynu arkaynaa in Galdogob laga qabtay Galdogob waxay ka mid tahay magaalooyinka wadnaha u ah maamulka Puntland oo magaalo hadda ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan oo Puntland ka tirsan dhanka Sanaag markaynu fiirino waxaynu arkaynaa inay baran ka qabteen inay dahar ka qabteen iyana waliba laas qore ay ka qabteen ayadana waa arrin aysan dood badan aysan ka taagnayn doorashooyinka Puntland ay ka qabatay dhinacaas iyo Sanaag dhanka kale markii la fiiriyo meesha la yiraahdo Karkaar kolay waa magac Puntland ay samaysay wax Karkaar la yiraahdo ma jiraan marka waa qayb kamid ah Sool iyo qayb kamid ah Bari weey sidaan kolay u fahmay Taleex baa ku jirta Qardha ku jirta Qardha waa Bari iyo Bandarbayla ku jirta marka Taleexna qaar kamid ah Taleex ayaa doorashadii 2023 marka laga qabtay markii laga soo tagaba dastuur ahaan inay Puntland ay ugu jirto Sanaag iyo Sool iyo meelo kamid ah doorashadii hadda la soo dhaafay Sanaag qayb badan kamid ah laga qabtay Taleexna waa midna hadda aynu arkayno in laga qabtay Galdoobna doodba kama taagna inay Puntland tahay iyo doorasho laga qabtay marka sheegashada Puntland ay arintaasi sheegatay ayaa waxay ka caraysiisay maxaa la yiraahdaa maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya yaa saxan yaa qaldan iyo ma doonayo inaan arrimahaasi aan hoos ugu dago qofba waxay ku xiran tahay meesha uu ka taagan yahay cidda saxda iyo qaladka la anigu judge ma ahay idin kala garqaadi ma hayo laakiin waxaynu analyze gareynaynaa waxyaalihii meesha ka soo baxay waxyaalaha fact check gaana waynu fiirinaynaa marka arintaas ayay ka xanaaqeen waqooyi bari ee Soomaaliya waraaq ayaa ka soo baxday maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya isla markaana waxay sheegeen dhowr qodob qodobka ugu horeeya waqooyi bari Soomaaliya waxay sheegtay in doorashada golaha deegaanka ee dawladda Soomaaliya ay wado inay taageersan yihiin waliba ayagoo xataa soo xigtay qodobada dastuuriga oo doorashada aan heshiiska lagu ahayn qodobada ay taageersan tahay waqooyi bari waxaynu ognahay inay jirto dhanka dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed waa aragtidooda weeye laakiin qaybta dhexe ee waraaqdan ay waxay waqooyi bari ee Soomaaliya ay hanjabaad ugu direen Puntland waxayna yiraahdeen ximaanta ka dambeeya ma aqbalayno faragelinta ay Puntland ku hayso dhulka maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya waxay sameyn doonaan meesha kuma aysan qorin laakiin hanjabaad culus ay soo dirtay waqooyi bari ee Soomaaliya marka Puntland iyo waqooyi bari ayaa ayaguna hadda ay ka dhex taagan tahay arrimo la xiriira isla doorashadan lagu doodsan yahay Muqdishona looga heshiin laayahay mashaakilka ugu weyn ee hadda Soomaaliya ka jira waa doorashadan cid walbana waa is haysaa Xasan Sheekh Maxamed wuxuu u muuqdaa nin siyaasad ka dhex goobaya in ummadda la iska horkeeno reer Gado iyo Axmed Madoobe laba hore loo kala qaybiyay xabad dagaal ba dhex yaala arrimaha doorashooyinkana qasab marka ay isku arki doonaan koonfur galbeed markii la fiiriyo watii baydhabo dagaal hadda ka dhacay haddana Xasan Sheekh Maxamed uu leeyahay doorashan geenaya mar labaad baa doorashada lagu dagaalami doonaa Hirshabeelle waa mid hadda la afduubtayba dadkii doorashada qabanayay naftirkeeda waa la isku gacan saari doonaa oo Hiiraan iyo maxaa la yiraahdaa Cali Guudlaaw kuma heshiinayaan doorashada Cali Guudlaaw naftirkiisu ma doonayo doorashada dhankaas kale ee markii la fiiriyo Galmudug ayaantii dhaweyd watii Cabduq laga diiday doorashada Xasan Sheekh Maxamed oo xabad ay ku sigatay in dadkii la soo diray oo la geeyay Cabduq in la laayo oo lagu kala tagay Puntland iyo hadda waynu arkaynaa waxa loo yaqaan waqooyi bari ayagana ay hub inaysan xabad iyo dagaal isla aadinin meel walba oo doorashadan la geeyaa waa dab iyo baasiin lagu dagaalamayo Xasan Sheekh Maxamed wuxuu u muuqdaa nin nafis ka dhex goobaya in ummadda inta iska hor keeno dab iyo xabad isugu dhiibo doorasho aan heshiis lagu ahayna ummadda dagaal oo markaas u dhex dhigo taa waa intaas qodobka ugu dambeeya beesha caalamka ayaa bilowday inay xilligan soo saarto waraaqihii ay caanka ku ahayd muuqaalkii horaan idinku sheegay in haddii shirka uu fashilmo waxa laga dhaxlayaa ay tahay waraaqahan jabaada oo ka imaanaya dhanka beesha caalamka iyo xalade waxaan kaloo idin sheegay in shirkaas uu fashilmi doono markii la fiiriyo meelaha la kala taagtaagnaa si walba ha ahaato waraaq baa ka soo baxday dawladda Mareykanka iyo beesha caalamka midda Mareykanka ayaynu fiirinaynaa beesha caalamka hadaad maqashaan waa shaati ka mid ah shaatiyada ay dawladda Mareykanku u gashato dawladaha sida Soomaaliya oo kale ah waxay Mareykanku ay sheegeen dialogue and compromise are difficult
but essential, and we encourage Somali leaders to continue to pursue them a unified Somali political process and counter-terrorism. Ama wadahadalka iyo tanaasulku waa mid adag dabcan waxay ka hadlayaan wadahadalka laakiin waxaa muhiim ah ama lama huraan ah oo ay ayagu waa beesha caalamka Mareykanka ay encourage gareynayaan ama ay dhiirigelinayaan in markaasi ay siyaasiyiinta ay sii wadaan oo aysan joojin halkaas kula tagin waxay leeyihiin siyaasad loo midaysan yahay ayaa lagu gaari karayaa in la iska dhiciyo argagixisada iyo in la xoojiyo dawladnimada ama nidaamka dawliga iyo in kor loo qaado wuxuuna hormarinayaa mudnaanta Soomaaliya iyo waliba beesha caalamka marka waxaa bilaabmay waraaqihii ay beesha caalamku ay soo diri jirtay in Soomaalida sida carruurtii loola hadlo in loo sheego danahooda iyo waliba in la canaanto this is the beginning inta way ka sii xoog badnaan doontaa kuwaas ama siyaasiyiintaas ayaynu maanta waxaan u fadhinaa inay Soomaaliya badbaadin karaan qabiil baynu la kala safarnahay nimankan meesha ku shiraya ama ku shiray hal qof oo tanaasul qaran uu ku jiro waxaan dalkayga uma fiicna danteeda shakhsiga iyo qaranka aan hormariyo ummadan waa dhibaataysan tahay dalka abaara ka jira colaadaha ka jira qof arkaya mar qof meel buu fadhiyaa ninka dalka madaxweynaha ka ah buug yar ta doorasho aan ugu arrabo oo doorasho hadii aan lagu rabinin kaliya xagee doorasho ka qaban kartaa marka ugu dambaysa soo isku xiijinaya xasan wuxuu soo fariisan doonaa doorashada ban aad wax kala ma sameyn karayo aqli wali oo ma soo degin waana mashaakilka haysta siyaasiyiinta Soomaalida ah xilligan jooga intaas ayaan muuqaalkan ku soo koobaya bal wixii dambe arrimahan ka soo baxa muuqaaladena dambe aynu ku fiirin doonaa assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh